لكن isla xisaabtan baa dhici doona hadalka intii si badneed waxa iga qaatay saraakiishii jananadii waxaan rabaa nuxurka inaan idin sheego la isku dayn maayo waxaas suurtagal ma ninkii hadeerba maarka ku tala galay waxa fiican waxa aad hayso qarisay inaad iska keento wixii aad hayso oo qarisay waad aragtaan gudoomiye maxkamadda jooga anigoo xaraaliya jooga baashu ciyaar waa dhaaftay waayo waxa inta qofku hadduu damiirkiisa uu xukumi waayo usha lagu xukumaa laakiin danab lagama filayn waxaas dhacay dambiye la yiraahdo dambiyada lidka ku ah shaqada iyo amaanada ciidanka waxa kamid ah lumin agabka ciidanka aad lumisa inaad lumisa hadii la diidaa inaad hadaan loo soo takawar oo adiga gadato dantaada gaarka ku raacato inaan lumisaa ay ka lumaan ay dayac kaaga lumaan dambi waa hadaa adiga gadato ka war oo lunsato hada dhibaatada iyo jabhada la dagaalamay adaaba ka daro dhibaato kala ah meesha loo fadhiyo macnaheed annaga sidaan noogu barateen miidanka joogayna xamar hadda kadib laga bilaabo maantadan halkaan waxa ugu tagaynaa qayb kiisaska diyaarisa markii kiisaska diyaariyaan kadibna halkaan la imaana meesha lagu maxkamadeena in la soo qaado oo taliyaha guutada xamar ilaa xamar soo wado ma sugayso qof xukuman ama qof xuraha inta joogay ama qof xukuman xamar tagay labada u dhaxeeya malaha halkaan imaanayna waa fiirsana meeshan digi lahayn waajibka kale oo askariga iyo sargaalka wasaaran ugu horeeyo waxa waay inuu dalkiisa difaaco macnaheeda marka la soo koobano waxa waay inuu ilaaliyo sareynta sharciga inuu ilaaliyo saasay ku imaan kartaa dawlad wanaagsan iyo ciidan wanaagsan inta Soomaaliya ama dalkeena dawlad ahaan uma burburina waxa u burburay ciidan ahaan u burburay sababtoo ah gacanta cid sharciga qalada gacanta qabaleed waa ciidamada haday ciidamada ayaga wax qaldan ka wariyaan qabanay cid qabaysa ma qalad qofkii wado oo idinka ciidan ku dhex jira inaad dacwiisaan oo taliyaha inay ka sareeyo u sheegtaan taliyaasha horimada iyo kooxaha hadda joogan waxaan kula dardaarmaynaa oo u soo sheegaynaa in askariga ka tirsan ciidanka laga qoraa daily report ma akhlaaqiisa muxuu yahay akhlaaqiisa ma fiican tahay qof xun iyo qof fiican inay isku dhex jiraan isku lab qasnaadaan waa la kala baxay waqti ka dambeeya